nabadeed daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 16 bisha sagaalaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah laba qodob oo madaxweynaha Soomaaliya uu la hortagi doono shirka qaramada midoobe maxay yihiin qodobadan muxuu sadiirada ku saaraya Xasan Sheekh oo sidoo kale maxaa ka soo baxay kulankii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Austin ee ka dhacay Pentagonka ciidanka commandos-ka danab oo dhulka la simay xaruntii ugu weyneed ee qaraxyada ee shabaab golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ansixiyay heshiis ay galeen Soomaaliya iyo Turkiga iyo Saciidani oo maamul cusub u magacaabay Garowe Galkacyo iyo Boosaaso intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaraan warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatan warkiyo fidsan laba qodob ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la hortagi doonaa shirka qaramada midoobe madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Mareykanka u tagay inuu ka qayb galo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe bana safarkii ugu horeeyay uu ku tagay dalkaas tan iyo markii uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday bishii May ee sanadkan madaxweynuhu waxa uu ka qayb gali doonaa meertada 77 ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe oo sanad kasta la qabto bisha September sida ay shaacisay madaxtooyada Soomaaliya madaxtooyadu waxay xustay in kulankaasi looga arrinsan doono yareynta saboolnimada iyo xasilooni darrada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhalinyarada xal u helidda musiibooyinka dabiiciga iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxa kale oo ay madaxtooyadu intaa ku dartay in madaxweynaha uu kulamo gaargaar la qaadan doono hoggaanka hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee ka qayb galaya shirka si uu adkeeyo doorka Soomaaliya ee fagarayaasha caalamiga sargaal sare oo dawladda Soomaaliya ka tirsan waxa uu BBC-da u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Khamiista marka taariikhdu ay ku beegan tahay 22 September uu khudbad u jeedin doono fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxa uu intaa ku daray in Soomaaliya ay haystaan xilligan laba arrin oo uu ku tilmaamay abaaraha iyo dagaalka dawladdu ay kula jirto shabaab kuwaas oo sargaalku tilmaamay in madaxweynaha khudbadiisa uu ku soo qaadan doono dhanka kalena maxaa ka soo baxay kulankii Xasan Sheekh iyo Austin ee ka dhacay Pentagonka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miradhala kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee magaalada Washington xogayaha difaaca dalkaasi Mareykanka James Austin xogayaha difaaca Mareykanka ayaa madaxweynaha Soomaaliya uga mahad celiyay booqashada iyo wada xaajoodyada ay yeesheen waxaanu sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka sida darteed ay ka go'an tahay dalkiisa inay gacan ka siiyaan dawladda Soomaaliya xaqiijinta amniga ee la dagaalanka argagixisada Xasan Sheekh ayaa kala hadlay xogayaha difaaca dawladda Mareykanka xoojinta xiriirka iskaashiga labada wadan ee dhinacyada amniga xasiloonida gobolka kor u qaadida taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada madaxweynaha ayaa dul istaagay dadaalada nafurnimada leh ee shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka ay kaga xoreynayaan argagixisada deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin dalka caqabadaha amni ee u baahan iskaashi caalamiya iyo si looga adkaado argagixisada curyaamisay horumarka gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya dhankiisa xogayaha difaaca Mareykanka waxa uu tilmaamay sida dawladda Mareykanka ay kaga go'an tahay adkeynta xiriirka iskaashiga labada dawladood taageerada ay siiyaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ee arrimaha bini'aadanimada tababaridda ciidamada iyo la dagaalanka argagixisada geesta kale danab ayaa burburisay xaruntii ugu weyneed ee qaraxyada ee shabaab ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa burburiyay saldhiggii ugu weynaa ee argagixisada al-shabaab ay ku diyaarin jireen qaraxyada sida ay baahisay warbaahinta dawladda ciidamada ayaa howlgalkan lagu burburiyay xaruntii muhiimka u ahayd shabaab waxay ka fuliyeen agaarka tuulada Tixsiile iyo deegaanka Garasgawaan ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada danab ayaa wada howlgallo culus oo ka dhan ah argagixisada al-shabaab iyagoo sidoo kale burburiyay saldhigyo xafiisyo iyo goobo kale oo shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buuqa Qable ee gobolka Hiiraan deegaankan ayaa la sheegay in kooxda uu ahaa mid istiraatiiji ah oo ay ka soo abaabulaan weerarada iyo qaraxyada ay ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed iyadoo si gaar ah dadka reer Hiiraan ay dhibaatooyin badan kala kulmeen argagixisada shabaab
sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka oo ka warbixiyay howlgalkaas ayaa shaaca ka qaaday in lagu dilay ugu yaraan 18 xubnood oo ka tirsan kooxda shabaab si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya maleeshiyaadka macawisley ayaa howlgallo iyo guluf dagaal waxay ka wadeen gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle docda kale ee golaha wasiirada ayaa ansixiyay heshiis ay galeen Soomaaliya iyo Turkiga xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankooda caadiga ah ee toddobaadlaha waxay ku yeesheen xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre kulanku ay soo xaadireen inta badan golaha wasiirada ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyadoo diiradda lagu saaray arrimo dhowr golaha ayaa meelmariyay heshiiska habmaamuuska ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga kaasoo golaha wasiirada uu horgeeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Cabdulqaadir Maxamed Nuur heshiiskan ayaa ku saabsan qaab dhismeedka tababarka iskaashiga caafimaadka ee ciidamada waxaana ujeedadu ay tahay dejinta hanaan iskaashi oo diiradda lagu saarayo dhinacyada caafimaadka ee ciidamada kaasoo u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale waxaa shirka golaha wasiirada warbixin looga dhageystay wasiirka amniga gudaha oo ka warbixiyay ammaanka dalka iyo howlgallada ka socda qaar ka mid ah gobolada dalka isagoo shaaca ka qaaday in jab xoogan lagu gaarsiiyay argagixisada shabaab golaha wasiirada ayaa dhankooda bogaadiyay howlgallada wadajirka ah ee ka socda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ay iska kaashanayaan ciidamada iyo macawisleyda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta ayaa sidoo kale shirka golaha wasiirada u soo bandhigtay howlaha gurmadka abaraha oo halka ay marayaan waxaanay mar kale ku celisay baaqi dowladda ee ku aadanaa in gurmad la gaaro shacabka la daala dhacaya abaraha intaysan isku bedelin macluul ugu dambeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa soo xiray kulanka waxaana golaha uu la wadaagay warbixin ku saabsan shirkii golaha watashiga qaran ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay Muqdisho kaasoo laga soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob ugu dambeyn Saciid Deni ayaa maamul cusub u magacaabay Garowe Gaalkacyo iyo Boosaaso wareegta ka soo baxday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu kala diray golihii deegaanka ee magaalada Garowe ee shaqeynayay 4 sano ee u dambeysay kadib wareegta labaad oo madaxweynaha Puntland ka soo baxday isla saacad gudaheed ayaa lagu magacaabay maamul ku meel gaar ah oo yeelanaya degmooyinka Garowe Gaalkacyo iyo Boosaaso waxaa xusid mudan in golayaashii deegaanada ee degmooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo hore loo kala diray isla markaana ay xilka hayeen maamulku meel gaar ah ninka loo magacaabay degmada Garowe ayaa ahaa shaqaalaha madaxtooyada waxaana uu joogay qaybta maamulka iyo lacagta waxaana lagu magacaabaa Cabdulqaadir Maxamed oo loo yaqaano Geedi magaalada Boosaaso ayaa iyaduna markasta nasiib u hesha qof xukuumadda kamid ah in si ku meel gaar ah loo soo magacaabo marka la eego saddexdii gudoomiye ku meel gaarka ah ee la soo magacaabay waxaana hadda loo soo magacaabay wasiir ku-xigeenkii qorsheynta Xasan Cabdalla oo hore u ahaan jiray duqa magaalada Boosaaso xilligii Cabdiweli Gaas sidoo kale waxaa gudoomiyaha degmada Gaalkacyo si ku meel gaar ah loogu magacaabay Xasan Maxamed Jaamac gudaana saaxiibayaal waa naga inta warka channelka dabagalka wararka oo dad ku cusubtay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada dad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo